gacanta loogu jirin oo shirkada cadaan ay haystaan bilaadan hirgelinteeda aan ku jeclaan lahaa waxay tahay in la soo dedejiyo intaan dastuurka la ansixin ka hor baarlamaanka oo ayagu ay ka doodaan oo ayagu ay qodobeeyaan oo ayagu ay ansixiyaan marka daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijkeennii dareenka shacabka iyo siyaasiga oo alaaba caawa oo talaada aad uga barateen inaad kasoo gudbino tv-ga caalamiga home cable tv barnaamijkan dareenka shacabka iyo siyaasiga alaaba waxaan kusoo qaadanaa mawduuc markaa taagan in laga hadlana u baahan annaga oo isku taxallujina inta badan inaan wadasha kusoo casuuno dad ama marti noogu ah barnaamijka oo aad ula socda ama falanqayn kara hadba qodobka laga hadlayo barnaamijka dareenka shacabka iyo siyaasiga waxaa qudhooda meesha ka maqnayn in ay dadweynuhu nagala qayb qaadan karaan 30 daqiiqo ugu dambaysa aana siin doono fursadooda si ay u soo muujiyaan ama ay noogu soo gudbiyaan dareenkooda ku aadan hadba qodobkaas laga doodayo qodobka caawa aan ka doodaynaa ama aan ka hadli doonaa falanqaynna ku samayn doono waxa uu yahay waxaan ognahay in maalinta berita uu shir ka furmi doono magaalada London ee dalka Ingiriiska shirkaas oo wada hadal loogu samayn doono ama la isugu yeeray inay ku wada hadlaan Soomaaliya iyo Somaliland falanqayn arinta ku saabsan ayaan caawa idin haynaa idinkuna qaybaha dambe ee barnaamijka ayaad si wanaagsan noogala qayb qaadan doontaan dareenkiina suuban oo wanaagsan idinkoo ku muujinaya aragtida ama dareenka aad ka qabtaan qodobkan aan falanqaynayna caawa barnaamijkan caawa waxaa marti iigu ah ambassador عبد الفتاح سعيد أحمد oo Somaliland European diplomatic gudoomiyaheeda la taliyana ah xagga arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah laba urur oo siyaasadeed oo ka jira Somaliland horena uga ahaan jiray safiirka Somaliland u fadhiya dalka Ireland sidoo kale barnaamijkan caawa waxaa marti iigu ah Cabdicasiis Cali Ibrahim Cabdicasiis Xildhibaan qoraa ahna tafaftire ka faalooda arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya sidoo kale qadka telefoonka waxaa isna barnaamijka qayb ka noqon doona oo ilaa iyo muddo barnaamijka nagala qayb qaadan doona Maxamed Cabdi Xasan Diriqabe oo ah suxuufi ruug cadaa ah oo inta badan dadku yaqaano kana faalooda waxna ka qora arrimaha Soomaaliya iyo Somaliland barnaamijka hadii aan dib ugu soo noqdo martidayda caawa ku soo dhawaada barnaamijka dareenka shacabka iyo siyaasiga aad baad mahadsantahay tafaan runtii waan ku soo dhaweynaynaa darbada ku soo dhawaada barnaamijka dareenka shacabka iyo siyaasiga hadii su'aasha koowaad aan Cabdi Fataax weydiiyo Cabdi Fataax shirki ka dhacay magaalada London 23 bishii labaad waxay ahayd markii ugu horeysay ee Soomaaliya iyo Somaliland ay shir ku kulmaan tan iyo markii ay Somaliland ku dhawaaqday gooni isu taaga bishii May sanadkii 1991 shirkaas go'aamadii ka soo baxay qodobadiisii lixaad iyo kii ka dhacay dalka Turkiga qodobkiisii tobnaad waxay sheegayaan inay wada hadlaan Soomaaliya iyo Somaliland ugu dambeyn kulankii ugu horeeyay oo foolka fool ah wuxuu dhacayaa maalinta berita wuxuuna ka dhacayaa magaalada London yaa Soomaaliya iyo Somaliland uga qayb galaya shirkaas yaase goob joogayaal ka ah beesha caalamka bismillaahir rahmaanir rahiim aad baad mahadsantahay runtii waxaan salaamay marka hore shacab weynaha daawanaya barnaamijkan runtii quruxda badan aad soo bandhigto weekliga iyo shaqaalaha TV-ga Home Cable gudaha iyo dibadda shacabka Somaliland iyo Soomaaliyada walaalaha iyaga meel walba joogaan taa hadan ka gudbo su'aashaada aan u gudbo runtii wad ogeeyeen waxay Soomaaliya ku 20 sanadood ayay runtii gooni isku taageedii ay haysatay 18 May iyadoo bariga galbeedba san taariikhda aad ogtihiinba ay ku dhawaaqeen burco in la isku yimaado tantiina ay noqoto in shantadii awalba waxa dawlad 60kii xorriyadda ka qaadatay dawladda Ingiriiska doonaysa shantii Soomaaliyeed walaalahooda inay runtii helaan NFD Djibouti iyo maxaa haydo gelinka shanaad marka halkaan u naqaano Ethiopia ka tirsan nasiib darrtii ma dhicin shantii Soomaaliyeed anaga ku hungoonay waxaana kala kulanay dhibaatooyin badan barakac cadaalad darro maanta tan la joogo waxa ay dawladda Ingiriiska runtii marka halkan la iskugu yimid waxa ay gaadhay qaraarka ah in la wada hadlo qodobka lixaad ka soo baxay 23 February sanadkan taasoo laga duulayo in maadaama Soomaaliya 20 sanadood caalamkan u sheegaynay taariikhdii kale dheregsan yihiin Somaliland arrimaheeda in maanta fursad loo helo in isku hor yimaadaan Soomaaliya iyo Somaliland oo equal partners ah oo markii ugu horeysay taariikhiyan table ka soo wada fadhiisan doona qodobba garteeda akhrisan
qabsan doonto Soomaalilandna muhiimadda u socoto shirkan ay u imanayso ama berita bilaabmay labada cisho socon doona shirkan wuxuu socon doonaa ka warhaysa laba cisho beri iyo saar dambe hadii la hayraa communique baa ka soo baxay khamiista galabnimada hadii la hayraa waxa dhici doona shir kale isna ka dhici doona dalka intaana taa u gudbin yaa shirka ka soo qayb galaya shirka waxa ka soo qayb galaya xagga Soomaaliland hadaan ugu noqdo shan maxaa hayday xubnood oo madaxweynuhu magacaabay shanta xubnood ee kaliya wasiirka arrimaha dibadda hogaaminayo waxa kale isna la socda wasiirka bulshada iyo shaqada ee Soomaaliland waxa kale isna la socda xildhibaanka koowaad ee golaha wakiilada Soomaaliland baashe waxa kale la socda maxaa hayday gudoomiyaha Faysal Calawarabo xisbiga mucaaradka oo markii ugu horeysay muxaafid iyo mucaaradba Soomaaliland ka wada imanayaan iyo ugu dambeyntii oo ah wasiirka madaxtooyada xirsi shanta xubnood ee Soomaaliland matalaya hadii la helo kana qayb galaya waxaana taasi ku tusaysaa markii ugu horeysay xukuumadda maanta jirta ee Soomaaliland in mucaarad iyo muxaafidba laga qayb galay shirkan aan u ahayn ama dad badan soo fasirtay wax u gooniya xukuumadda kaliya aad baad mahadsantahay xildhibaan su'aashan kugu soo celiyaa mise kolley waad maqlaysaan filahaya bismillaahir rahmaanir rahiim wariye duraan adigoo aad iyo aad u mahadsan waxaan jeclaan lahaa marka hore inaan ugu hambaliyo qaybaha Soomaalida ah labadaba marka ah ee ay qaadeen ee ka qayb galaya kulankii loogu baaqay in uu ka dhaco magaalada London hadda waxay la tahay sida laamaha warbaahinta laga sii daayay waxay dadka Soomaalida ay la socdaan in kulankaasi uu berrito furmaayo waxaan jeclaan lahaa inta aan jawaabta su'aasha ku fogaanin inaan yar oo saxaala ka sameeyo hanaanka loo dhigo ama siiqada dadka Soomaalida ah ay mariyeen ama laamaha warbaahinta ee jira ay hadalka u dhigayaan waxa wada hadlaya waa dawladda ku meel gaarka ah ee Jamhuuriyadda Soomaaliya iyo maamulka waxaan rabaa hadalku inuu u cadaado dadka Soomaalida ah ka jira deegaanadaas Somaliland ما حكومت بنا على صوت عليه وعبد hadalka waan ku deenayaa markaaga waxaan rabaa dadka Soomaalida wixii ku qornaa communique ka soo baxay qodobkiisa lixaad magaalada London inay dib ugu noqdaan waxa wada hadlaya laba xukuumadood ma aha waxa wada hadlaya maamulka gobolada waqooyi ee Jamhuuriyadda Soomaaliya anigu ma dhihin hadalkaas waxaan sheegi doonaa hanaankii loo dhigay iyo dawladda ku meel gaarka ah ee Soomaaliya cidda goobjooga ka noqonaysa sida iska cad wafuudda dhinacyada ka qaybgalaya kulanka berrito furmaya dhinaca Soomaaliland Cabdifatax ayaa sheegay ee wada hadallada uga qaybgalaya ee kulanka la yeelanaya dawladda ku meel gaarka dhinaca dawladda ku meel gaarka waxa hogaaminaya wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka Cabdisamed Macalin Maxamuud oo ujeedada wakaaladda uu sitaan ay tahay wada hadallo hordhac ah oo hogaamiyayaasha maamulkaasi ay la yeelato dawladda ku meel gaarka ah ee Soomaaliya waxay la tahay su'aashaas inaan ka jawaabay dadka Soomaaliyeedna ay fahmeen cidda wada hadlaysa yaa goobjoogayaal ka ah beesha caalamka shirkaas shirkani wuxuu kaga duwan yahay shirarkii hore ee ka dhacay magaalooyinka London iyo Istanbul ma aha shir culayskiisu uu la egyahay kuwii hore ee wakiilada bulshada caalamka iyo ururada ee dawliga ah ama kuwa aan dawliga ahayn ay goobjooga ka ahaayeen ujeedadoodu ay tahay hanaan xasiloon oo Soomaaliya ka hirgala aad ma santaa adilma warsha si wanaagsan baa ku maqlaa dilma su'aasha kullay waxaan filayaa waxay tahay shirka ka dhacay magaalada London 22kii ama 23kii bishii labaad sanadkan waxay ahayd markii ugu horeysay Soomaaliya iyo Somaliland shirku kulmaan taliya markii ay Somaliland ku dhawaaqday go'aan isu taaga bishii May ee sanadkii 1991 shirkaas go'aamadii ka soo baxay qodobkiisii lixaad iyo kii ka dhacay dalka Turkiga qodobkiisii tobnaad waxay sheegayaan inay wada hadlaan Soomaaliya iyo Somaliland ugu dambeyn kulankii ugu horeeyay oo foolka fool ah wuxuu ka dhacayaa maalinta berrita magaalada London ee dalka Ingiriiska yaa Soomaaliya iyo Somaliland uga soo qayb galaya odayaasha sheegay yaase goobjoogayaal ka ah beesha caalamka maadaama ay tahay suxuufi aad ugu dhunduleela arrimaha Soomaaliya iyo Somaliland
waad mahadsan tahay walaal aad baan kaaga mahad celinayaa barnaamijkan qiimaha leh soo bandhigtay waan ka xumahay in waqti dambe la sheegay inaan barnaamijkaas soo sheergareeyo oo ka soo qayb galo jawaabta haddaan u soo gudbo ota sida anigu aan ka soo xiganayo wasiirka arrimaha dibadda Somaliland Dr. Maxamed Cabdilaahi Cumar shirku wuxuu dhacay qaab bilateral oo laba geestooda oo Somaliland shan xubnood oo ay u magacawday inay shirka ka qayb galaan according shirkii London 23 bishii February sidoo sheegtayba ka dhacay London waxa la isku soo horfadhiisanayaa Somaliland oo ah qaran madax banaan oo halkaasi gorgortankeedii jiritaankii madax banaanidii iyo qarannimadeedii 1991 ay magaalada Burco kaga dhawaaqday ay ku ayidayso sida wasiirka arrimaha dibadda Somaliland Maxamed Cabdilaahi Cumar hadda 10 ilaa 20 daqiiqadood wafdaxaafadeed uu sii daayay ku sheegay una gudbiyay xogayaha arrimaha dibadda dalka Ingiriiska William Hague waxa ay Somaliland ay halka la tagaysaa oo ay soo bandhigaysaa in abyadeeda iyo madax banaanideeda iyo jiritaankeedu inuu yahay geed ka go'an taasina aanay ahayn wax siyaasiyiintu goynayaan ay tahay wax shacabka Somaliland labadii ay dastuurtii ay qaadeen national referendum ay qaadeen ay ku ayideen 7% dabcan marka bilateral la eegayo waxyaabo markaa imika waxa jira mugdi baa ku jira shirka mugdigaasi suxufi ahaan research baa ku sameeyay weli waxaan laayahay wax written ahoo proposal amba agenda qoran oo labada dhinac inta la dhaxdhigayo la leeyahay idinkuna taa ka dooda taa maxaad ka qabtaan idinkuna taa oo shacabka labada dhinac ee Soomaaliya iyo Somaliland loo bandhigo waayo shacabku xaq bay u leeyihiin inay ogaadaan waxa laga hadlayo